iyadoo maalmo kooban ee naga xiga maalinta ciidda ayaa qaar ka mid ah bulshada magaalada Puntland ayaa ka hadlay u diyaar garowga Ciidul Fidriga. Bulshada oo la hadlay warbaahinta SBC ayaa sheegay inay si wanaagsan ugu diyaar garoobayaan maalinta Ciidul Fidriga. Markaan dareenkayga ka hadlo degmada Puntland, runtii waxaan oran karnaa waa sidii ugu sareysay abad intii aan soo aragnay Puntland aan joognay. Waa intii ugu sareysay, waa ciidii ugu sareysay baan oran karnaa oo dadku ay si noocan oo kale u soo baxaan ama ay u dukaameystaan. Ciidan iyo ciidii hore waxay ku kala duwan yihiin. ciidii hore lagama dareemi jirin inta badan deegaanka. laakiin ciidan dhammaan reer Puntland waa laga dareemay. Ilaahay baa mahad leh. aad iyo aad baa loo diyaar garoobayaa ciidii. magaalada Puntland aan ku suganahay. hadda carwo aan joognaa carwo washaale. waad arkaysaa dadkii dhammaan yaryarkii iyo caruurtii iyo waaweynba iyo dumarkii iyo caruurtii odayaashii iyo dhalinyaradii si aad iyo aad qurux badan baa ciidda loogu diyaar garoobayaa. waxaa ka muuqda magaalada oo dhan waa soo marayo meelaha dharka lagu gato diyaar garow aad u qurux badan oo ciidda loogu diyaar garoobayo. waxaa lagu jiraa aakhirka bishii barakeysanada Ramadaan haddaan nahay maxaan ku sheegaa milkiilaha iyo xubinta carwo washaale dhammaan maxaan ku sheegaa macaamiisha si fiican baa u soo dhaweynay si wanaagsan way u gadanayaan dharka ciidda si fiican waa loogu dabaaldegay gaar ahaan degmadeena magaaladeena Puntland joogno. والله أساس لنا وفرق وما ودحية عيد والبحر كنا موضة يرق صب وعيديه وركدوان دتكم هذا عيد والبدر صب بيسفع عودنيان مركع عيد أنا وعزنا. waxaan joogaa carwo bulsho ma sha Allah ciid aad baa looga dareemayaa magaalada Puntland sidoo kale waxaan ugu iibsanayaa ma sha Allah abaarta laga soo qabtay dadka waxay u iibsanayaan ismale oo maanta lagu soo booqday goobtan aan ku sumanahay aad aad u mahadsantiin ayagoo kala qayb qaadanaya ciidda maalinta yawm ciidka Ciidul Fidriga ku soo aadan farxadda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan degmada dadka reer Puntland aad aad u degan yahay waa aragtaan dadku waxa weeye qaabka ay iibsanayaan joogsi u degan yahay marka xaaladdu waa kala degan tahay degmada Puntland aad baa suuq dhaqaaq u soconaya runtii sida aqoontiina ilaha degmada Puntland ilaha hadda dadku maanta ilaha farxadda ay ku soo aada ilaha xilligan wax farqi weyn saas oo dhaxeeyo waa badanaa waa isku dhow yihiin gaar ahaan degmada Puntland waxa iyadu ay degmooyin kala dheedahay waa meel aad iyo aad u qabow saxadeedu wanaagsan tahay caanaha laga helayo hilibka laga helayo dadku ku soo xagaa baxaan marka shacab badan oo ka yimid gobolada sida hadda Boosaaso oo kala kulul iyo ka yimid halkaas soo degay. ugu dambeyntiina xogaayihii hore ee degmada Puntland Xaafid Cabdirasaaq Axmed ayaa narkiisa ka hadlay u diyaar garowga ciidda. Idaacadaha SBC oo runtii ah idaacadaha ugu waaweyn ee Puntland ka shaqeeya waxaan leenahay ummadda islaamka meel joogta ciid wanaagsan bishii barakeysaneed ee Ramadaan baa lagu jiraa qaybtii ugu dambeysay bishii 27 bay ahayd waa la wada soomay waxaan rajaynaynaa in la wada iido waxaana laga dareemayaa suuqyada ku yaala degmada Puntland u diyaar garow ku saabsan maalinta ciidda foodan uu soo heeso Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC degmada Puntland.